السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabta igu xiran maanta waxaa waayan ku dhahay timaha la nafaqeena nafaqa timaha aada ugu fiican iyo quraac yaran kasoo tuuraneena waa rootiinkeeni maasha allah. asxaabta igu xiran aada iyo aada usoo dhawaada janalkan waa janalka nagala socotaana waa Sacdi Cook and Beauty. marka meeshaas waxaan ku haystaa waa garoor iyo baaquli macalqo. marka waxaan ku shubtay 2 macalqo oo garoor iyo 3 macalqo oo garoor waxaan ku darsanaa hal xabo ukunta jaalada ma ahan ukunta biyaheeda wadato waa jaalo kaliya waxay rusidii saytuun marka waxaan isku darsanay 3 xabo yooqar garoor ama sabaadi 3 macalqo sabaadi hal xabo ukunta jaalada waxay rusidii saytuun marka timaha injika oo ka jajabay aad iyo aad ugu fiican yihiin. marka haddana waxaan u marsaneynaa ku dhac caruusadeena maasha allah kusoo dhawaada saxaabta igu xiran timaha sida loo marsalahay ama isticmaali lahayd aan idin tusaynaa. marka aniga ma inoo marsana wixii anoo waa qasooya laakiin wixii sida loo isticmaalayo inaad la socodsiiyo inkastoo kasaysin sida timaha loo marsado laakiin ani baashaas biladaas baabirkaas soo gatay marka finaanadeeda yaa shalay intaan wax ku halaabaana dhaqay waaba hilmaamaba inay qaawneedba inay dhar ugu jirayba ilaa amarkiis ilaahayd markii dambe cunuga wuxuu leeyahay way qaawan tahay. marka cunugero aan dhalaa soo baxay wuxuu dhahay way qaawan tahay hooy way qaawan tahay. marka hadda anina garbasaarka ani ii fuulale ugu daboolay coorada ugu asturay marka timaha u marsaneena maasha allah. garoorkii iyo wixii garoorku wuxuu u fiican yahay timaha jajabaayo timaha dadka oo timo injiga jir magta oo timahooda yaabis yahay timaha yaabiska ama injiga loogu talagalay wuxuu kale u fiican yahay timaha daadanayo ukuntana timaha xoog u yeeshaa timaha marka day xoog lahaynin oo ayaga dhanba awood dhan lahaynin waxaa u baahan tahay inaad ukunta isticmaashid jaalada oo timahaada waxay u yeelaysaa awood iyo xoog. garoorkana timahaada dhinteen oo yaabiska oo wuxuu kaaga dhigaa lamaac oo ku lamacnaa. saliid saytuunkana waaba taqaanin saliid le waaye saliidana iyadana way lamaacine marka garoorka iyo saliidii ukunta daa isku heshid meesha maxaa kaaga soo baxay tin inaba aan caadi ahaynin oo qurux badan aad tintaada inay dheeraato inay jilcanaato mush daruuri inay qurux quality ay leedahay awood leedahay ay adag tahay ay qurxan tahay muhiimku aadi tintaada waa inay ku qurxanaataa ha ku gaagaabnaato ama ha ku dheeraato ama ha ku jilcanaato ama ha ku jareerawda. marka anaga Soomaalidaan hadii jareerteena iyo jileeceena normal waaye timaheena normal waaye anaga Afrikada kale waxa ugu duganahay timo iska normal oo tugulo oo xabad weyn aan qabnaa laakiin timihii dhaqaale u baahan safaleeti 4 saac noo saaran. marka timaha inaad dhaqaaleystaan waaye timaha oo jilcana timaheena ka fiican inuu timaheena tugulo oo xabad weyn waaye haddii dhaqaale hesho oo la daryeelo safaleetka 4 saac saarna laga ilaaliyo hawo yar la siiyo timahaada markaa soo deysatidaan ku dhahay timo wuxuu ku noqonayaan karoole duub qurux badan hadaa fooneysatidna kaba sii daranba timo badan oo qurux badan ku soo baxayaan. marka waxaa sameynaysin timihiina nafaqada ugu dadaala nafaqada gurigaada lay ku taalaa nafaqadan banaanka laga soo gadaayo wax ay ku taraysa male adoo tan maalin kasta ama wiiki 2 mar 3 mar tabartaada dadaa jiro maalin kasta awoodin oo shaqo ka dhacdo oo hool ka dhacdo maanta dhan tima dhaqi karin dad waxaa jiro isbuucii jikolo isbuuci guriga waa la joogaa ama galabtiga marsi kartaa habeenkii taan saxanaa ka dhaqi kartaa si allah sidaartida u isticmaali kartaa haddii laakiin aad ku dadaashid waaye oo timahaada aad daa'imatid oo adig dhaqaalahaada gacantaada ku xiran tahay wax walbo lama kala qurux badnee qubeyskaa la isdheeryahay marka lamana kala tima fiicnee timaha sida loo xanaaneeyo aa la isdheeryahay timihiina xanaaneysta. markaa saxaabta igu xiran saana idinkula wadaagay timihiina saa ugu marinayo waa ujeediin timaha mariya lafaha ku xoga timaha dhexda ka geliya si fiican isku raacsiiya shaambadig fiican oo haysatiin ku dhaqda haddana jikadan galeynaa baashisaan inoogu soo dhamaatay. meeshaas waxaan ku haystaa hilib shishiid waxyaro hilib shishiid waa adiga hilibka shishiidkan hadda ani haysta waa 250 gram oo hilib shishiid wuxuu noqonaa adiga rubacna ma dhamo tumina waa ka badan yahay adi rubac waaye 250 gram waa rubac
yaanyadeena ku shubaneynaa. maanta hirgaba ahay sanka ay cuban, marka yaanyadaasaan ku shubanay. yaanyadeena markaa ku shubanaana ku dhawa ku shiilaneynaa. yaanyadan idoo jaa-isaan soo gatay, cusbo yara u baahantaa ku darsanaysaa, waa isku lalabaysaa, si dhan waa walaaqee. markaa walaaqdid kaasna waa basbaas gaduud oo budada waxyaro xawaaji waxyaro huruuda caadiga waxyaro maaji aan ku darsanaynaa u baahannahay. halahaas leeb waa waxweyn ma aha, waa isku soo lalabeynaa. markay noo karto ay soo labanto waxaa kaloo ku darsanaynaa, horta si fiican u labeynaa, waa shiileynaa. markaa shiishid oo si fiican u labtidna waxaa ku darsanaynaa waxyaro basal xabad yariis oo soo jarjartay, soo yaryareeyey, iyo xabad barbarooni oo soo yaryareeyey. barbarooniga iyo basashana ma waaweyneen, waa yaryaraayeen. basal weyni barbaroonina dahaasta haaf ka dhigane. marka waa xabad basal oo yar oo iyadana aan soo yaryareeyey, iyo xabad barbarooni oo yar asna markaa soo jarjaraaya aan yaryareeyey. marka saana kusoo shiilaysiinaa ku dhahay. maasha allah tabaarakallah. waa cunto yar oo iska fudud, aadna u macaan, oona ka helaysaan wax muhiim oo maanta weyn oo qaaliyana ma ahan, waa iska easy. daboolkiisaan saarana waa ka tagnay. intan waxaan soo qabsaday baaqurigeyga, xaggan waxaan ku shubtay 350 garaam oo bur cusbadiisa ku daray iyo sokor, wax kale ma ku darin, waa cusbo iyo sokor iyo burki iyo biyihii. halahaas la isku qasaa. caanana ma ku darin, ukuna ma ku darin. caanaha ukunta markaa ku daro wixii oo dhan wada culays ay naqanayaan. marka aan maanta saana u samaystay, wuxuuna ku naqanaa qafiif oo qarjam markaa cunaysa waa dareemaysaa. suuf ma ahan, waxyaro iska jijilcan oo macaanna waaye. cunuga xalakiisa xabo cuno, banaankiisa uu ku dhacaa, wax damba ma soo raadinayo. qadada ka soko edabtiisa meel u fadhinaa, inuu burkii iyo maasha allah iyo hilibkii shiidnaa iyo qudaartii wixii oo dhan waxay kusoo baxaana ku dhahay wax kale oo waali marka waana macyahay. haddana taawada dabka saaranayna, jikadeynaan galeynaa, duboobaan galeynaa. marka waxyar saliidaan taawada marsaday, burkaa ku shubanay. burka markaa ku shubatid macalkadiisaan soo qaatay, waa ku shubtay. waxay riisitoo cajiinka korale ka baxaayo leewaaye. daqad hilibkii noo karsanayaan soo qaadanaynaa. waxay riisaan geeskaas uga shubanay. waxay riiska markaa ku shubatidna waxaa sameynaysaa waxyaro oo jiis ama kaas ama farmaajo korka ka saaray. maasha allah. marka burka waa gedinaa, markaa gediya haddana waa isku soo laabaa. inkastoo iga jabaaya markaan laabo, waxaan u wacan caano ma ku qasan, ukuna ma ku qasin, saliidna ma ku qasin. waa bur keligiis inuu jajabayo waa ogtihiin. marka sida anaga oo noola macyaha u samaysanay, adig tiirtina daartiin oo ka jajabin, caanihiina ku tirsanaysiin iyo ukuntiin iyo waxyar saliida ku qasaysiin. markaas ma idinka jajabayo, wixii oo dhan isku soo laabmayaan. haddana xabadi kalaan ka tuuranay asxaabta qaaliga. waa kaasaa waa kala tuuranayna aan ku dhahay, inaba caadi ma ahan. kusoo dhawaada, waxyaalo idin raali geliyo idka heshaan insha allah inaan soo gelinaa jecelnahay. rootiinkeena macaa cunto kariskeena macaa tim sameeyowgii wixii oo dhan aan ku dhahay waa la kala tuuray, wax weyn ma ahan. marka waa kana xabad kalaan ku shubanayna hadduu ilaahay yiraahdo. xabad kale markaa ku shubanane iyadana alaabtii korka loogu shubaa lagu shubaa. waa hilibkii noo karsanaay ama hilibkii shishiidkii noo karsanaay waaye asxaabta igu xiran. markaa lasoo dhawaadaan ku dhahay, ilaahayna dembigeena ha cafiyo, dembi waalidkeena. marka wax la sameynaya mal allah yaqfir dunuubana wa dunuuba almuuminiin walmuuminaat fa inahu laa yaqfir dembi ilaa anta. marka baasheen noosaan inoogu soo dhammaan hoosaa. wax kaloo oo maanta hadda aan dhib ma jiro. wax walba waa sahal. waxa sahal taa ka dhigatid waa sahal, waxa taa culays ka dhigtidna culays ay kugu noqonayaan. xabadii noogu dambeyso waaye. kusoo dhawaada asxaabteyda. janalkan waa janalka Sacdiyo Cook and Beauty. waxyaalo idin raali geliyo ka heshiinaad kala soconaysiin maalin walba, iyo wax cusub iyo howl iyo shaqo iyo cunto karin, wax walba nadaafad, wax kasta oo soo gelinayna hadduu ilaahay yiraahdo. marka burkeen xabadii noogu dambeysa waa saani kusoo dhamaatay. waxaan idin leeyahay saxaabta aad u mahadsantihiin. soo dhawaada maalin walba saana iskula soconayna hadduu ilaahay yiraahdo. is aragti dambe oo xiiso leh. wax kale iyo waxyaalo kalena waa helaysiin insha allah, waa iga sugaysiin. waxaan idin leeyahay soo dhawaada. mar saddexaana idin leeyahay soo dhawaada. haddana waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. is aragti dambe oo xiiso leh. nabadey.